ilaa iyo 2500 oo qof oo Ethiopian ah ayaa waxa la sheegayaa inay ahaayeen dadkii u dambeeyay ee u tallaabay dhinaca Suudaan ayagoo ka soo cararay gobolka ay colaadu ka taagan tahay ee Tigray ee waqooyiga Ethiopia waxaana laga cabsi qabaa in qaxu inta ka sii bato guud ahaan ilaa iyo 6000 oo qaxooti ayaa waxa la rumaysan yahay in ay gaareen dalka Suudaan ilaa iyo iminka xaaladda gobolkaas ayaa waxa adag in wararka ka imaanaya xaqiiqdooda wax badan laga ogaado maadaama wadooyinka iyo isgaarsiintu ay go'an yihiin inkastoo dawladdu ay sheegtay shalay inay qabsadeen Xumayra misna dadka magaaladaas ku nool noloshooda si caadi ah ayay u wataan sida laga soo xigtay xafiiska warbaahinta ee maamulka Tigreega warbaahinta dhanka dawladda u janjarta ee Faana waxa iyana ay soo warisay in 17 sarkaal la xiray kadib markii ay khalkhal galiyeen hanaanka warisgaarsiinta ay isticmaalayeen ciidanka federaalka kuwaasoo u nuglaaday in khatar ay galaan hogaamiyaha Tigreega Debretsion Gebremichael ayaa isna waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki in uu soo diray ciidan Tigreega la dagaalama laakiin se wax cadeyna ma aanu soo bandhigin wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa isaguna arintaas beeniyay isagoo yiri qayb kama ihin dagaalka Ridwan Hussein oo ah afayeenka guddiga arrimaha degdega ee dhawaan la magacaabay ayaa isla waxa uu sheegay in askartooda lagu qasbay dib inay ugu gurtaan dhinaca xuduudda Eritrea ka hor intii aysan dib isu soo abaabulin oo aysan soo qaadin duulaan rogaal celis ah waxa kale oo qirtay in ciidamada Tigreegu ay la wareegeen gacan ku haynta dhismaha taliska waqooyi ee militariga Ethiopia ee ku yaala magaalada Mekelle ee xarunta u ah gobolka Tigray Abiy Ahmed ayaa isna bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in howlgalka uu joogsan doono oo kaliya marka hubka laga dhigo koox uu ku tilmaamay dambiilayaal xukunka haysta lana soo celiyo maamulka sharciga ah kuwa baxsadka ahna la soo qabqabto xoogaga TPLF ayaa waxa la rumaysan yahay inay gaarayaan ilaa iyo 250,000 oo nin oo si fiican u hubaysan sida khubaro laga soo xigtay waxaana dagaal qaraar hore ay ula galeen Eritrea intii u dhaxaysay 1998 ilaa iyo sanadkii 2000 ayagoo ka horna kaligii taliyihii wadanka ka talin jiray Mengistu Haile Mariam xoog uga tuuray xukunka sanadkii 1991 boqolaal qof ayaa waxa la sheegayaa in ilaa iyo iminka dagaalka lagu dilay kaasoo u muuqda inuu u xuubsiibanayo dagaal sokeeya marka la eego cadawtinimada sii fogaanaysa ee u dhaxaysa Tigreega iyo xukuumadda Abiy Ahmed oo isagu ka soo jeeda qowmiyadda tirada badan ee Oromada qaybo kala duwan oo xoogaga Tigreega ah ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay isdhiibeen markii la qabsanayay garoonka diyaaradaha ee Xumayra oo u dhow xuduudda Ethiopia la leedahay Suudaan iyo Eritrea iyadoo sidoo kalena uu militarigu gacanta ku dhigay wado magaalada ka baxda oo aada xuduudda Suudaan sida laga soo xigtay warbaahinta dhinaca dawladda u janjarta ee Faana laakiin se ma jirto cid madax bannaan oo warkaas xaqiijisay isniintii shalay ahayd ayaa wariyayaal ka tirsan wakaalada Reuters oo u socdaalay gobolka Tigray iyo gobolka dariska laah ee Amxaarada waxa ay arkeen gawaarida xamuulka oo ay saaran yihiin maleeshiyooyin hubaysan iyo gaadiidka dagaalka oo ku sii jeeda jiidda hore ee dagaalka diyaaradaha dagaalka ayaa iyaguna waxa lagu soo waramay inay garaaceen kaydad hub uu ku jiray iyo bartilmaameedyo kale sida labada dhinacba laga soo xigtay halka shaqaale gargaar iyo ilo xagga amniga ahna ay ku soo warameen in dagaal culus uu dhacay ilo dhanka militariga iyo ammaanka ka tirsan oo jooga gobolka Amxaaradana waxa ay ka hadlayaan dhimashada boqolaal qof oo labada dhinacba ah iyadoo haddaba ay jiraan baaqiyo ah in wada hadallo la qabto ayaa gabar afhayeen ah oo u hadashay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa meesha ay ka saartay in uu diiday soo jeedin ka timid diblomaasiyiin taasoo ku saabsanayd in dhexdhexaadin la sameeyo iyo in uu khatar gelinayo deganaanshaha gobolka Bilene Seyum waxa wakaalada Reuters ay u sheegtay in Ethiopia ay tahay dal madax bannaan oo xukuumaddiisa ay ugu dambeyntii iyadu gaarayso go'aanada danaha dalka iyo dadku ay ku jiraan Abiy Ahmed oo ah 44 jir ahna hogaamiyaha ugu da'da yar Afrika kuna guuleystay bilada Nobel doorkii uu ku lahaa in uu nabad la gaaray Eritrea iyo isbedelada dimuqraadiyadda ee dalkiisa ayaa mayal adaygiisa ku wajahan Tigreega waxa uu dareen ku dhaliyay diblomaasiyiin badan dagaal buuxa oo dalku uu galana waxa loo arkaa mid dhaawac u geysan kara dhaqaalaha oo markii horeba la daalaadhacayay dhibaatadii uu u geystay xanuunka coronavirus
deegaanka Tigreega xilligan aanu joogno dagaal baa ka socda. Ciidamada qaranka ku sugan waqooyiga Itoobiya ayay dawladda sharci darrada ee deegaanka Tigreega laga dhisay ay weerar ku soo qaadeen kolkaas si loo badbaadiyo hay'adaha federaalka deegaanka Tigreega, sidoo kale si waxyeelada ay gaarsiin karaan dawladdaas sharci darradii shacabka Tigreega iyo shucuubta kale deriska la ahba looga badbaadiyo. waa laga falceliyey kolka meelo badan hadda waa la badbaadiyey dagaaban gudaheedna sidii loogu soo afjari lahaa hawshaas ayaa falowgeed lagu jira. maxaa marka laga ogyahay khasaaraha ka dhashay dagaalkan ee soo kala gaaray labada dhinac? dawladda sharci darrada ee deegaanka Tigreega laga dhisay kule ciidamada way weerareen, sidoo kale hay'adaha federaalka oo ay ka mid yihiin bangiyada ku yaala deegaanka Tigreegana boob bay u geysteen. sidoo kale dad rayada ku dhaqan goobaha deegaanka Amxaarada iyo deegaanka Tigreegu ay deriska ka yihiin sidoo kale dhibaato la soo gaarsiiyey. booliska ay diyaarsadeen dawladda sharci darrada ee ka jirta deegaanka Tigreega ee hadda go'aanka laga qaatay weerarka ay ku qaadeen shacabka rayidka ah, dil iyo dhaawac iyo hanti ay burburiyeenba way jirtaa. xogta oo dhammaystiran marka ayna soo gaadho ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah. waxaa soo baxaya warar sheegaya in diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidamada militariga ee waddanka Itoobiya la soo riday. intaad ogtahay arrintaasi maxaa ka jira? diyaaradan ay sheegeen iyagoo baynu ka maqalay dhinaca isgaarsiinta maadaama dhibaato ka jirto, arrintaas in la xaqiijiyo ayay u baahan tahay. war ma laga hayaa marka madaxdii maamulkaasi halkay ku sugan yihiin? intaan ku ognahay madaxda dawladda sharci darrada ee deegaanka Tigreega ay ku sugan yihiin. ka gol ahaana go'aan baynu ka qaadanay salooda ogsoon yahay hal dawlad deegaan haddii uu dastuurka ku xadgudbo in dawladda federaalka lagu amro inay faragelin ku samayso ayaa dastuurka dalkeena awood u siinayaa golaha federationka. kolkaa golaha federationku sabtidii lasoo dhaafay shir degdega u yeeshay ayaa wuxuu ku go'aamiyey dawladda federaalku inay deegaanka Tigreega farageliso, in maamul ku meel gaadh ah laga sameeyo ama laga dhiso deegaanka Tigreega. maamulkaasaa lagu bedelayaa. kolkaa golahaas ayaanu asaasnay muddo gaaban gudaheedna golahaas ama maamulkaas ku meel gaarkii uu howlgeli doonaa. waxaa la ogyahay in maamulka Tigreega aanu la mid ahayn maamulada kale ee waddanka Itoobiya marka la eego dhanka awoodda military oo gobolkaasi waxaa ku yaala saldhigyada military ee ugu waaweyn waddanka Itoobiya. marka dagaal lagu qaado maamulkaasi soo ma muuqata inay tahay arrin aan laga fiirsanin? colaadii u dhaxaysay dalka Itoobiya iyo dalka Eritrea iyadoo la sababsanayo ayaa waxaa lagu dadaalay in la adkeeyo la tayeeyo saldhigga ciidamada qaranka ee deegaanka Tigreega ku yaala. waa xaqiiq hub fara badanna halkaas waa la geeyey si xuduudda dalka loo ilaaliyo maadaama xuduud ku yaalaan. hantidaas waa hanti dalka Itoobiya ay leedahay. kolkaa waxay isu dayeen hantidaas dawladda federaalku ay leedahay ee saldhigga ciidamada qaranka yaalay inay boobaan oo ay sifo khaldan u adeegsadaan oo ay kaga hor yimaadaan ciidamada qaranka. gudbay bay sameeyeen, khasaarana way gaadhsiiyeen ciidamada qaranka, balse howlgalkii maalmihii lasoo dhaafay la sameeyey wax badan baa laga qabtay. meelo fara badan ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaanna waa laga soo celiyey. hadda inta badan hay'adaha federaalka iyo saldhigyada ciidamada difaaca qaranka ee deegaanka Tigreega waxaa gacanta ku haya ciidamada difaaca qaranka. howlgalkuna uu sii socon doonaa ilaa inta xubnaha sharci darrada ah sharciga la horkeeni doona.